أحمد محمد سيلاني مدحوينها سوماليلاند ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib markii uu soo dhameystay safar shaqo oo muddo 7 qaatay oo ku marayay qayb kamid ah qaaradda Yurub iyo waliba martiqaad rasmi ah oo ka helay madaxweynaha dalka Ireland Axmed Maxamed Silaanyi madaxweynaha Soomaaliland ayaa madaarka caalamiga Eagle International Airport ee magaalada Hargeysa marka uu saaka ka soo degay waxa halkaas ku soo dhaweeyay madaxweyne xigeenkiisa xubno kamid ah golaha wasiirada cutubyo ka tirsan ciidanka qaranka mudane madaxweyne waxa salaataada u diyaara cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane madaxweyne ku soo dhawow أحمد محمد سيلاني markii uu ka soo degay garoonka waxa uu la hadlay warbaahinta safarkiisa iyo intii uu maqnaa wixii uu soo qabsoomay dhanka kale Axmed Maxamed Silaanyi madaxweynaha Soomaaliland xaaladda siyaasadeed ee ka dhex akiran xisbiga kulmiye sidoo kale madaxweyne Silaanyi waxa uu sheegay in doorasho xor oo xalaal lagu tartami doono shirka golaha dhexe xisbiga kulmiye oo 10 bisha inagu soo foole lagu wado inuu ka dhaco Hargeysa madaxweyne Silaanyi oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa yidhi بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامك بعدي وحن كفر حسنا إن تلقي دبه وصول نقلي سنبت قلياه وحن كسر لابت سفر شقو وحن كنت قدلك آيرلاند كاسو أنا لقول نيها أدها كلا الدول الدولة ده يمدحوينها دلك ونمبرسق علي سيدنا كور هينو waxaa fooda inagu soo haya xilligii doorashooyinka imikana waxaa taagan shirka golaha dhexe xisbiga kulmiye sida dalku lagu yaqaanay wadankani waa dal dimuqraadi ah xisbigana waxaa lagu tartami doonaa si dimuqraadi ah oo loo siman yahay waxay xisbiga iyo dowladaba kula dardaarmayaa in la ilaaliyo midnimada qarannimada anshaxa iyo dhaqanka suuban ee tartanka dimuqraadiga ah iyadoo la dhowrayo nidaamka iyo xeerarka xisbiga u yaala guud ahaan waxaan dalka kula dardaarmayaa in la ilaaliyo nabadgelyada wada jirka iyo isku duubnida qaranka aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhanka kale madaxweynaha Soomaaliland oo ay warfidiyeennadu wax ka weydiiyeen inuu isagu musharax yahay iyo in kale ayaa ku jawaabay anigu hal la gaaro waqtigeeda isku soo wada duuduub oo hadalkani ka soo yeedhay maanta madaxweyne Axmed Maxamed Silaanyi ayaa u qoysgooyay siyaasiyiin u hanweynaa in shirka golaha dhexe kooto lagu xidho dadka inta badan siyaasadda u dhuun daloola ayaa hadalkan madaxweyne Silaanyi ku macneeyay mid halbacaad lagu lisay gudoomiyaha xisbiga kulmiye oo u heelana in ayna cid la tartamin Khadar Kaafi Space Channel Hargeysa.